muqdisho oo amnigii lagu guuldareystay in la xaqiijiyo waxay dantu keentay in la isticmaalo jawaano carro laga buuxiyay iyo sidoo kale dhagxaan waaweyn si bal loo yareeyo khasaare badan oo ka dhalan lahaa amni darrada sida qaraxyada in la yareeyo. taasi waxay keentay in farsmagaalaha xarumaha la dhigo difaacyadaasi ay muuqaal xumeeyaan magaaladana ay u muuqato goob dagaal. isla difaacyadaasi ayaa dhalinyaro isu tagtay kuna wanaagsan farshaxanka ay bilaabeen in sawir gacmeed bilic wanaagsan ay ku xardhaan iyadoo dana ganacsi looga faa'iideysanayo. haaskoogna saa ogtiin waxaa loogu talagalay difaac ama qaab dagaal marka magaalada Muqdisho oo dagaalkii iyo wixii waa ka farabatay marka in dadka tiiraanyada haysa iyo wixii laga yareeyo yaan ugu talagalnay marka intaynaan sameyn ka hor marka galaysid maqaayadan liido intaqaana seafood restaurant waxay u ekeed inaa galaysid dhufays balse hadda waxaad dareemaysaa inaa galaysid maqaayad. waa dhagax labadiisa dhinac loo adeegsanayo laba aragti oo kala duwan amni ganacsi iyo sidoo kale soo celinta bilicda dalka uu lahaa. halkani waa afaafka hore ee xarun laga cunteeyo waxa ay kaabiga ku haysaa xeebta liido ee magaalada Muqdisho. hadafka difaacan loo dhigo waxa ay ahayd in lagu sugo amniga goobta balse hadda waxa loo isticmaalayaa si ka duwan sidii hore iyadoo ay bilic u tahay iyo waliba sidoo kale soo jiidasho xaruntan iyo waxa gudaheeda laga helayo. wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa waqti sii horeeyay amar ku bixisay in la furo wadooyinka lagu xiray dhagxaanta iyo jawaanada carrada laga buuxiyay taa oo muuqata in si rasmi ah aanan u dhaqan gelin. 3 Oktoobar sanadii 2016 gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa si lamid ah amray in la furo wadooyinkaasi xiran. Maxamed Cumar Cabdi Nuur Dhaqane, Goobjoog TV.